السلام عليكم أصحابتي إنه بحن حق يوتيوب channel دونيدي عصب تيج ولا الحدي channel عصب تيج سبسكرايب سوينا دو هدي أبغى إنه جو ترى لا كمان شير أصحابته عشركي امتحانها إنه هاي حساب سناي أو بس أما objective oriented programming سيدا دو تقاند أما system أما waxaynu ka soo qaadanay qaybtiisii koowaad ee object and class videogii labaad waxaanu ku soo hadlay qaybtiisii labaad abstract iyo encapsulation qaybtiisii saddexaad maanta waxaanu uga hadlaa qaybtiisii saddexaad polymorphism oo ah shan ka next video waxaan ku hadli doonaa inheritance so six concept obis na saas bay noo eg tahay so asxaabta obiska waa macnaha haddii aad programming aad tahay obiska aad iyo aad buu ku anfacaa because programmida oo majorka ah asiga unbaa lagu isticmaalaa waana macnaha waxa maanta macnaha haddii la dhaho programming obiska wuxuu yahay macnaha waa hirtiga macnaha waa wadnaha of programka wax walbaba asiga macnaha kala fududeeya let's go asxaabta عشر كان نقول قلنا عشر كود بيخو abstraction إياه encapsulation so عشر كان ما أنت حكوا سابسين واقيبتي سيشنات polymorphism so أصحاب توام حي polymorphism أوكي معنا أنا واخد بعدي سو كوبي معنا definition food معناها example food وجهد بانجلي وان يدي سو معناها ويدي سو كلاسين أوكي concept تيجي يدي سو قاعدة أنت مهم كه so polymorphism معناها بولي means معناها محيط هو money أوكي وواحد بدن morphism معناه waxay tahay waa form ama behavior okay waa many forms waxay isku noqonayaan many forms ama many behavior okay for example example waxa soo qaataa maxaa example loo yahay for example saa u taqaanid shape no shape iska dhaaf okay for example aniga ahaan example ahaan iga soo qaad aniga salaad ahaan macnaha salaadan ahay laakiin maxaa sameeyaa maalin hoowaatay magaalkan aadaa maalin xaafadan jiifta maalin banooni baan dheelaa maalin game baan dheelaa maalin jaamacadan aadaa maalin asxaabtayda fan la soo qaataa soo aniga salaadkii ahay laakiin shaqooyin kala duwan baa qabtaa I think inaad fahanti okay si kale haddii aad u qaadato shape ama wax sawiritaanka oo kale micnaha haddii la fiirsho sawir waa micnaha wax markaas sawirayso shape-ka for example waxaa jiro rectangle oo kale triangle oo kala jiro circle oo kala jiro so dhamaan waxay wada yihiin waa micnaha wax sawirtaan bay yihiin ma fahanti laakiin waxay ku kala duwan yihiin qaabkii loo sawiray bay ku kala duwan yihiin I think inaad fahanteen so polymorphism wuxuu kala baxaa labadaas waxay kala yihiin compile time polymorphism iyo second ko runtime polymorphism okay compile time kan si kala baxa waxa loo yaqaanaa function overload ama se method overload okay iyo operator overload okay qaybta labaad runtime kaasiga waxa weeye micnaheedu waxay ka dhigan tahay virtual function ama soo taqaanid machine virtual okay so casharkeena si guda galaynaa asxaabta method overloading ama saa u taqaanaa hadda meesha micnaha runtime ka waxa loo yaqaanaa ku dhahay waa method overriding okay compile time kana waxa loo yaqaanaa method overloading ama operator overloading okay overloading ka wuxuu kala baxa operator iyo method ama function runtime kana wuxuu u baahaa overriding so waa kan example ahaan camal saan baa digu soo habay asxaabta method overloading fc overriding maxaa la kala okay overloading for example meeshan saad u jeedin micnaha waxa class animal baan soo qaatay public wide add this method kan baa soo qaatay oo add okay method kale baa meeshan soo qaatay keyword ka public wide keyword kaas add into a into b okay two parameter meeshan galshay into a into b okay another waxaan soo qaatay method kale okay public into add into a into b into c okay so saad u jeedin method ka magaciisu waa isku wada mid oo wuxuu yahay add saddexdoodu waa isku mid balse maxay ku kala duwan kan koobaad aad u jeedin macnaha waxa weeye waa default waxba ma lahan okay wax argument ama parameter ma lahan parameter so kan labaad aad u jeedin two parameter oo leeyahay kan saddexaadna saddex parameter oo leeyahay okay I think inaad fahanteen macnaha waxa loola jeedaa hal shay ba many forms oo isticmaalay macnaha waa one thing hal shay ayaa waxa uu isticmaalay siyaabo kala duwan saad ogtahay si language marka soo qaadanaysa macnaha function ka
haddii aad magac u samayso magacaas functionka ku isticmaashay again function kale tood magacaas ma isticmaali kartid micnaha waa dhan meeshaas khalaas meeshaas ku ogtaa laakiin obiska muxuu ka saacideynaa loo yaqaano overloadingka wuxuu ka saacideynaa ama polymorphismka hal magac ayaa waxa u isticmaali kartaa intaas method laakiin micnaha shuruudihii ku kala duwan yihiin gadaal bay ka soo socdaan okay overriding kaasi waa kana class animal public wide add okay another class extension extended so kan waxa waa micnaha overriding ka waxa loo isticmaalaa markii aad isticmaalaysid inheritance okay waa cashirka soo socono ayaan si fiican ugu sheekay doonaa inheritance micnaha waa micnaha dhaxal oo kala Soomaaliga micnaheedu lagu dhaho inheritance so class dog extends animal so isla methodkii soo qaadanay balse micnaha ujeedada laga leeyahay gadaal waa ka fahmi doontaa okay meesha soo jeedid difference between overloading and overriding difference u dhaxay maxaa overloading and overriding okay waa labadii hadda soo qaadanaynay overloading iyo overriding difference u dhaxay okay as first at theoretical analysis and next at practical ka guda galayna okay overloading micnaha waxa waa accuracy within one glass okay accuracy within one glass hadu jeedid hadda overloading ka micnaha halkaas glass un baa soo qaatay balse micnaha glass kale ma wadi okay overriding kana accuracy in two glasses super glass and sub glass oo taqaanid parent glass and child glass okay muxuu sii the example inheritance is involved okay waa inheritance ku lug leeyahay macnaha marka inheritance isticmaalaysid baa overriding meesha imaana okay faa'iidooyinkiisa gadaal baa ugu dhici doona okay saad u jeedid meeshan kan halkaas baa glass baan isticmaalay kan laakiin laba glass aan isticmaalay glasska koowaad waa animal glasska labaadna waa dog but dog extends animal okay glasska dog wuxuu extension uu ku sameeyay extension animal buu ku sameeyay okay qaybta labaad difference u dhaxaa wili ka hadlayna name of the method is same but parameters are different okay so do you did name of the method all was same wa add but the parameters were kala duwan kan koowaad waa default wax parameter ma kan labaad laba parameter buu leeyahay kan saddexaadna saddex parameter buu leeyahay a iyo b iyo c okay halka hadii la yimaado name and parameters both are same okay overriding marka joogto name ka and parameters both are same okay example waba kana name ka oo function ka magaciisa add waa iskaga mid but laakiin parameterna ma walahanba kana ma walahanba soo waa iskaga mid labadaba okay purpose ujeedada loo isticmaalayo maxay tahay kan oo overloading ah increase readability of program okay program ka ayuu ku siyaadina micnaha ku sii habeena anfaacta because waxyaabo badan baa doonayna ka hadasho laakiin waxyaabahaas hal magac bay wataan laakiin behavior-ka kala duwan yihiin okay because bini'aadanka waxa laga yaabaa human wadiin laakiin behavior-kooda kala duwan yahay dhaqan kala duwan bay leeyihiin okay qaabkaas camal kana sidoo kale tood just extension baa ku sameynaa parent glasski yaa ku sameynaa extension child glasski baa ku sameynaa so it is example of compile time it is example of runtime baa hadda taas soo sheega camal loo kala qaybinay so asxaabta iyadoo practical ah ayda tusaa let's go waxaan isticmaalaa Eclipse ID okay application Eclipse hadda waan soo kiciyay waxay noo sameynaa project name ka waxaan leedahay tusaale kale polymorphism okay maanta waxaan ka hadlaynaa polymorphism so next aad leedahay waxba kan bedelaysa just finish aad leedahay okay create aad leedahay kadib module-ka delete baa iska leedahay waxaad imaanay meesha source-ga aad kliga ku siinay new-ga tagay new-ga ku dhufanay glass-ka imaanay so glass-keena magaca u sameeynayna magacan glass-keena u sameeynayna for example waxaan leenahay Java test waxla iska dheh ama iska dhaaf glass A oo kale dheh ma u baahnin wax badan inaas magac dheer aan qaadano okay package kana maybe Java okay then waxaan leenahay public class oo wide main macnaha main class ka tigta soo saaran then finish okay saad u jeedo waa kana waxaan u baahnay dilad naga dheh okay saad u jeedo hadda class-kaas baan soo qaadanay class A baa soo qaadanay intana
so asxaabta si aan u walaaxinaha micnaha waxaan sameynaa glass labadan sameysana isla hadda labada glass aan inta ku isticmaalo maybe more duplicate bay noqonay micnaha inuu ku walaaxdina macquul ah so glass labadan inta ka sameynaa okay glass labaad waxaan sameynaynaa for example glass maxaan qaadanaa for example okay no need iska dhaaf waxba ma qaadimeyn iska dhaaf okay meeshaan baa imaanay waxaan leedahay waxay noo qaataa for example public void for example maxaan qaadanaa for example waxa la show okay function kan baa qaadanayna show okay delete it okay function show baan qaadanay so main class ka imaanay main class markaad imaatid okay main class keena imaanayna main class waxa leedahay waxaan sameysanaynaa objectiga so objectiga sidii loo sameeynaa class ka soo qaadanay sequel so okay asxaabta objectiga ma sameysanaynaa waxa leedahay glass ka soo qaadanay objective for example obj ka soo qaado objective equal new semicolon okay then waxa leedahay for example obj dot show okay so sad u jeedin meeshaan waxa sameysana another function soo qaadana okay so kana kubisana asxaabta method labaadana waa inaan isticmaalo oo same show waxa sameynaa for example empty this for example waxa dhahdaa system dot out dot 20 line waxa dhahdaa this is default okay this is default method okay then put it semicolon okay can waxaan leenahay for example int a okay so a baa value siinayna waxaan leenahay for example system dot out dot 20 line leenahay for example I equal plus I semicolon guys kan la iska bixina glaskii kala soo koobiya hada soo ka bixi yeah okay so system waxaa leedahay system yeah so inta a ka dhig okay saad u jeedeen asxaabta wax qalad hadda ma lahan waxaan sameynaynaa meeshan saad u jeedid waxaan soo qaatay labo function laba method soo qaatay methodka koowaad waa show method kalena waa show labadoodu magac waa isaga mid show and show but maxay kala duwan yihiin parameter kala duwan yihiin kan waa default wax parameter haysto kan laakiin hal parameter haystaa okay waxaan leenahay for example obj dot show so meeshaan value baan siinaa for example 5 okay saad u jeedid meeshaan main classkeena objective baan sameysanay so objective dot show and objective dot show kan waxaan sii qiimaha 5 kan waxaan sii waxba ma siin okay for example waxaan sameynaynaa runtime okay saad u jeedid wax soo saaray this is default method
I equal to 5 okay I equal 5 okay sabab maxaa sabab marka inaan dhacdo kan koowaad micnaha maadaama uu default yahay kaas defaultiga ah oo call gareyna kan labaad maadaama uu default yahay maadaama uu wuxuu wata one parameter okay wuxuu call gareyna kaas kale for example waxaan leenahay kan biska siga dhanba xasaabtaakii iska xir so hadda waxaan sameynaynaa objectiga oo defaultiga baa runtime ku sameynaynaa labadooda midkoo waco actually wuxuu wacaa kan koowaad because kan koowaad waa default okay kan koowaad kan labaad laakiin parameter buu haystaa objectigan waati method kan aan call ku sameynayno waxaynan wax parameter ma haysato okay so wuxuu noo keenaa this is default method okay runtime baa ku sameynaynaa so this is default method okay I hope inaad fahanteen saad u jeedin meeshaan labada method waa isku magac balse maxay kala duwan yihiin parametric ay ku kala duwan yihiin iyo waxay ku kala duwan yihiin magac waa isla mid laakiin parametric kala duwan yihiin okay for example kan baa copy noo dhaha control C then paste okay waxaan leenahay for example comma int p okay then waxaan leedahay sum equal equal mid tahay a plus b okay hadda asxaabay method kala soo qaato saddexaad methodka haddana ku magacaabo asigana show waa laakiin maxay ku kala duwan yahay parametrica waxaan ka dhigay laba parameter okay midna waa a midna waa b okay then waxaan sameynaa control C paste waxaan sameynaa 5 comma n okay then waxaan ku sameynaa asxaabay saddex parameter saddex meeshan saddex waxaan soo qaatay callka saddex baan ka dhigay kan koowaad waa default kan kaleeto waa one parameter galshay kana laba parameter okay runtime baan ku sameynaa asxaabta saad u jeedid wuxuu noo keenay this is default method I is equal 5 sum equal to 5 shan boqol iyo toban actually shan lagu daray micnaha toban ma ahan kii laakiin waa ina concatenationka waa ina meeshaas gelisaa bracket waa inaad gelisaa okay okay hadda waxay noo noqonay shan lagu daray toban waxay noo noqon doontaa 15 so again run ku samee okay saad u jeedid asxaabta sum waxay kula mid tahay 15 okay I waxay kula mid tahay 5 this is default actually saad u jeedid micnaha waa kaasa so example kan muxuu ka dhigan yahay kan waa method overloading hal method baan isticmaalaha magaceeda la show laakiin se maxaan u isticmaalaha different parameters shaqooyin kala duwan ay qabanay okay so hadda waxaan naga sameeysaa delete baan ku sameynaa okay waxaan dhan delete iska okay delete asxaabta method overriding hadda gudagala method overloading micnaheedu waa kaas waad fahanteen so method overriding waxaan sameynaa meeshan glass kalan qaadana okay new glass aan noo soo sameynaa waxaan sameynay for example so this glass muxuu ka dhigan yahay this glass a new glass aan meeshan ka sameynaa for example waxaan leeyahay b okay finish so glass b aan soo qaatay meeshan so kana copy noogu sameynaa okay kan baa copy noogu sameynaa so control V okay saad u jeedid meeshan public wide show waxaan iska dhahdaa magaca showga naga bedelo waxaan dhahdaa for example add okay so this is default method moos waxaa dhahdaa this is super glass okay so waxay maataa glasskeena labaad so actually waxaan sameynaynaa glasskeena labaad a waxaan leenahay it is standard b
okay inherited baa ku sameynaynaa method kan iska magac baan ka dhigaynaa add si labada galaas isku magac u noqdaan because muhiimadda ayaan idin tusaa haddii labada galaas oo micnaha function kadib magacyada la kala bedelo waa caadi laakiin muhiimaddeena maanta maxay tahay waa micnaha hal magac oo siyaabo kala duwan loo isticmaalaa soo meesha showna waxaa ka dhigtaa add okay asxaabi saad u jeedin waa waxaan sameynaynaa marka hadda add kan wuxuu wici doonaa this is waxaa dhahdaa this is subclass amase child class asxaab hadda runtime aan ku sameynaa okay galaaskayga koowaad waa kana oo super galaaskayga waa kana maxaan dhahay hal method u wataa oo la dhaho super micnaha hal method oo add la dhaho waxaana ku dhigay this is super class okay galaaskeena labaad waa kana ama child ama subclasska extends b this is subclass okay so method kan add ka hadaa waco oo micnaha default ah labadooda mid ku wici doonaa ama this is superclass uu soo dhigi doonaa mase this is superclass ama this is subclass uu soo dhigi doonaa actually wuxuu soo dhigaa this is subclass the reason maxay noqonay okay ana idin sheegi doonaa reasonka uu ku soo dhigaa actually so this is subclass ayuu soo dhigay okay maxaa sabab uu soo dhigaa example waxa dhacdaa micnaha for example waaga jaaldiga hada micnaha iskuulka dhiganaysay telefoon maanad lahayn laakiin waxaad isticmaalaysay waalidka teleefoonkooda okay haddii arday uu ku weydiiyo teleefoonka noocee aad isticmaashaa actually teleefoonka waalidka aad isticmaasho oo kala hadishidaad weydiinay teleefoonka noocaas aan isticmaalaa okay laakiin waalidka iskale because waalidka wuxuu leeyahay iskale okay muddo ka baad teleefoon fiican baa iibsatay teleefoon aad iibsatay ardaygii baa kula soo hadlay wuxuu ku dhahay actually teleefoonka aad isticmaashaa okay teleefoonka aad isticmaashada u sheegay because waxa adiga leedahay iskale laakiin waxa waalidka leeyahay adiga la lahay laakiin hadda waxa gadaa iskale okay I think inaad fahanteen for example waxa sameynayna kan waxba muu yeerayna dileed ka dheh because for example waxa soo qaatay anigu wali telefoon iibsan laakiin waxaan rabaa waalidkay maadaama ka standard ku sameey telefoonkiisa la isticmaalo okay so hadda hadduu ardayga ku weydiiyo telefoonka isticmaasha teleefoonkii oo waalidkaa baa u sheegay fiirso okay runtime baan ku sameynayna saad u jeedid what suk runtime okay what is the reason add double class extended okay asxaabta qan baan ku sameynaynaa okay saad u jeedid default buu soo saaray maxaa yeelay add kan wuxuu kala galay function hadda adiga aad haysatid okay so haddii aan kan delete dhahna maadaama aan xagga ku haysano delete baan leenahay maadaama waalidka telefoonkiisa aan isticmaalaysid waxaan leenahay add kaas baa isticmaalaynaa soomaan maadaama kan extended ku sameyn okay hadda waxaan ku sameynaynaa marka runtime aan sameynaynaa space hoogaa yeah this is superclass okay saad u jeedid micnaha hadda galaaskeenan wax function ah ma haysiyo wax function ah ma qaadan laakiin extended wuxuu ku sameeyay b na waxay haystaa one method haystaa methodkan wuxuu yahay waa add okay this is superclass I think inaad fahanteen laakiin hadda haddii galaaska hadduu uu function soo qaato micnaha haddii la call garo function kan isku mid yihiin wuxuu sameyn doonaa actually waxay la mid tahay micnaha waalidka adigoo telefoonkiisa ka gudbay oo adiga telefoon qaaday haddii lagu weydiiyo telefoonka wata actually telefoonka aad haysatid u sheegay I think asxaabtiina ay fahanteen so asxaabta